ku bar luqadda Ingiriiska qaab xiiso leh. Ahmed, a young Somali guy, had just arrived in Minneapolis from Somalia. Ahmed waa wiil Soomaaliyeed oo imaaday Mareykanka, gaar ahaan Minneapolis, wuxuu ka yimaaday Soomaaliya. Excited but nervous, markuu imaadayo ku faraxsanaa, haddana walwalsanaa. He was just trying to adjust to the new life. wuxuu isku dayay inuu la qabsado noloshiisa cusub and learn English oo uu barto Ingiriiska. On his first day in the city, maalintiisii ugu horreysay ee caasimadda uu imaaday, he was feeling hungry. Wuxuu dareemayay gaajo uu gaajaysnaa. And remembered wuxuuna soo xasuustay that he had about a food market nearby, inay jirto suuq lagu gado cuntada oo ka agdhow isaga. Since he loved traditional Somali food like cambuulo, wuxuu aad u jeclaa cunto dhaqameedka Soomaalida ee cambuulada. He thought he could find something similar there. Wuxuu u maleeyay inuu ka heli karo wax la mid ah halkaasi. He walked into the busy food market. Wuxuu soo dhexgalay suuq lagu gado cuntada and saw a man selling what looked like cambuulo. Laakiin wuxuu arkay nin gadaya wax u eg cambuulo oo kale. He smiled, wuu dhoola cadeeyay and confidently approached the man saying, wuxuuna si kalsooni leh ninkii ugu tagay, wuxuuna yiri asoo dhahayo, "Excuse me, can I have some cambuulo?" Igaraal ma heli karaa wax cambuulo ah? The man looked confused. ninkii wuu la yaabay, yacni wuu ku wareeray hadallada cambuulo wax laga wado. What is that? Maxaa laga wadaa waxaas? Ayuu yiri ninkii. Ahmed tried again. You know cambuulo? Ahmed mar kale intuu wuxuu ku celiyay, wuxuu yiri you know cambuulo ma garanaysaa? Rice and beans please. Bariis iyo digir waayo cambuuladan kuu sheegay. The man thought for a moment. Ninkii cabaar buu yiri fikiray and then pointed to a large hot dog. ninkiina markaa kadib wuxuu u tilmaamay hilibkiisa, hilib ayuu u tilmaamay. He asked, hot dog ma garanaysa ayaa la weydiiyey Ahmed. Ahmed was puzzled. Ahmed xoogaa uu yiri fahmi waayey oo uu ku wareeray, but didn't want to seem like he didn't understand. Laakiin ma uusan rabin inuu u muuqdo sida qof aanan fahmin oo kale. So he nodded, yes. Marka madaxu ruxu wuxuu yiri, yes, ha. The man handed him the hot dog. ninkii wuxuu u dhiibay hot dog ayuu u dhiibay and Ahmed took a big bite. Ahmedna hal mar ayuu goostay. He immediately spat it out. Isla markii buu soo tufay. What is this? He exclaimed. Wuxuu ku qeyliyay, waxaan maxay yihiin? This is not cambuulo. Waxaan cambuulo maba ahane. Just as Ahmed was about to leave, Ahmed asagoo raba inuu baxo, a Somali man who had been watching nearby came over. nin Soomaaliyeed oo markaas meesha ka agdhawaa fiirinayay ayaa u yimaaday. He saw Ahmed's confusion and said, wuxuu arkay Ahmed inuu wareersan yahay oo uu la yaabay meesha, yacni inuu ku cusub yahay dareemay. Wuxuuna ku yiri, my friend, you're not Muslim are you? yacni saaxiibkayo qof muslim ma tihid miya? Ahmed stared at him. Ahmed isagii ayuu ku mashquulay u fiiriyay. Stared waxaa waaye markaad qof aad u fiiriso waxaa la stared. Confused asaga oo yaaban ayuu ninkii fiiriyay. Wuxuu ku yiri kiina hadalkiisu sii watay, because only someone who isn't Muslim would eat hot dog. qofka aanan muslimka ahayn ayaa cuna hot dog. Ahmed was embarrassed, but the man quickly explained. Ahmed was embarrassed, but the man quickly explained. ninkii baa isla markiiba u sharaxay. It's a hot dog, waa hot dog made from dog's meat. waxaana laga sameeyey hilibka eyga. Feeling both confused and a bit embarrassed. wuxuuna dareemayay yacni inuu waxaan ku wareersan yahay, sidoo kalena isceebs ayuu dareemayay. Ahmed looked at the hot dog in his hand and said, Ahmed wuxuu fiiriyey yacni cuntadii uu gacanta uu ku hayay, wuxuuna yiri, but I just wanted cambuulo. kaliya waxaan rabay inaan cambuulo aan gato. Why is food so complicated here? maxaa halkan cuntada yacni loogu wareerayo ay dhib u tahay in la helo? The Somali man laughed and patted him on the back. ninkii Soomaaliyeed ayaa intuu ku qoslay patted him on the back. dhabarka ka dharbaaxo dhiirigeliyo. wuxuu ku yiri, next time waqtiga xiga ask for berries or sugo. waxaa weydiisataa berries ama sugo weydiiso. You will get the food, cuntada aad rabtaa markaas helaysaa. No hot dog. ha dalban hot dog. marka xigta dalbo bariis iyo suugo ayuu ku yiri. Ahmed smiled. Ahmed wuu dhoola cadeeyay, realizing that learning English asagoo ogaaday in barashada luqadda Ingiriiska and adapting to American food culture iyo la qabsiga cunto dhaqameedka Amerikaanka wasn't going to be as easy as he thought, inaysan u fududayn sida uu maleynayay.